بسم الله الرحمن الرحيم. عربا إن مانتا halkan uga hambaliyeeyo ummadda Soomaaliyeed ansixinta miisaaniyadda qaranka ee 2026 oo runtii miisaaniyad macno weyn u leh waqti dheerna la soo geliyay aan uga hambaliyeynayo oo uga mahad celinayo cid kasta oo qayb ka qaadatay gaar ahaan xubnaha labada aqal guddiyadii maaliyadda hay'adihii kale oo doorka ku lahaa oo intii miisaaniyaddu socotay wada xaajoodka lagala yeeshay iyo dhammaan cid kasta oo miisaaniyadda khusayso ama qayb ka ahayd waxaan leeyahay dhammaantiin waana mahadsantiin waana inay hambalyeynay walaal diidmadaasi diidmo wax cilmiyeysan ku salaysan maaha dayn la qaaday oo dayn caadiyana ma jirto waxa weeyaan dayn yar oo nooca ugu sahlan deymaha oo isugu jirta dayn iyo deeq oo loogu talagalay bangiga horumarinta in uu ku maalgeliyo kalluumaysiga beeraha enerjiga iyo xoolaha oo dadka Soomaaliyeed loogu talagalay inay uga faa'iideystaan dulsaar yar lagu siinayo capital u noqonaysa bangiga horumarinta oo marba inta laga qaatay lagu soo celinayo muddadeeda 40 sano ay tahay percentage-keeda interest-kuna uu 1% yahay marka ma aha wax ummadda Soomaaliyeedna dhiba ummadda Soomaaliyeed waxay sugayaan waqtigii ay maalgashiga sameyn lahaayeen adduunka ay amaah weydiisan lahaayeen ay maalgashi ku sameeyaan maalgashiyada caadiga iyo deymaha caadiga inta waana ka muddo yar yihiin waana ka interest yar yihiin marka deyn maaha deyn iyo deeq isku jirta oo khafiif ah ahayd ummadda Soomaaliyeed bayna dan u tahay marka khalad baa laga fahmay wax kale la hoos gelinayaa oo ay dadka kale sabab kale ay laga yaabaa inay ka dhaxarkayaan iyo shakhsiyaad iyo waxyaabaha laakiin wax laga dhibsado laga diidaa kuma jirin waa mahadsan tahay waxaan rabaa horta inaan ka warramo maamulka waqooyi bari ee Soomaaliya maanta wuxuu ka mid yahay maamulada dalka ka jira dowlad goboleedyada dowladda xubnaha ka waana maamul rasmi ah si buuxda loo aqoonsan yahay waa uga mahad celinaynaa cid kasta oo garab u noqotay madaxweynaha jamhuuriyadda ugu horeeyo ra'iisul wasaaruhu ugu horeeyo dhammaan guddoonka golayaasha labada aqal iyo ummadda Soomaaliyeed oo dhan dowlad goboleedyada meel kasta ay joogaan iyo cid kasta oo door ku lahayd waa uga mahad celinaynaa maamulkaas wuxuu ka mid yahay maamulada dalka ee miisaaniyadda qaybta ka ah miisaaniyadduna ku jira miisaaniyadduna sidaa uma shaqayso reer iyo gobol uma shaqaysee 25 wasaaradood weeye 25ka wasaaradood wasaarad walba item walba ama madax walba mid buu raaca oo deegaanada laga qabanaya ciidamada raacaan waxbarashada raacaan caafimaadka waxbarasho saar dhamaantood waa wax sidaa u dhisan hogga miisaaniyadda waa ka ay horyaal hal meel oo ay kaga taalo dowlad goboleed gaar ah ma jiro oo gaar ka dhigaya ama ka reebaya inanka xildhibaanka aad sheegayso ma rabin inaan arrintiisa ka hadlo laakiin mar dad soo qaaday waxaan rabaa inaan ku gaabsado xildhibaankaas waqooyi bari shaqo fiican uma hayo oo horumar ah waxa uu hayaa ka shaqeeyaa waxa weeye inuu dadka shaqo geliyo niyad jabiyo waxaan jirin u sheego miisaaniyadda kama shaqeeyo miisaaniyadna ma oga miisaaniyadda anaa deegaanada ka soo jeeda waqooyi bari anaa gacanta ku haya qof aniga iga horreeyna ma jiraan marka waa warar aan sal lahayn oo wax la dhoobdhoobay waa dadka iska caadiga qaar baa ku soo wacay oo ku odhanaya miisaaniyadda igu dar shaqo qof shaqa oo marka te war laga heli maayo waxay ku odhanayaan intay fadhiistaan bay odhanayaan waxaasaa la xumeeyey waa wax noocaa ku dhisan iyo wax la mida marka waxba kama jiraan maamulkaasi wuxuu
maamul goboleedyadu waxay yihiin buu ka yahay miisaaniyadda waxay kuwa kale ka yihiin buu ka yahay miisaaniyadda dawladda inta lagu dhex jiro taramka waa la dheelitiraa waxaa laga yaabaa miisaaniyaddii la ansixiyey 25kii oo bayska u ahayd miisaaniyaddan intii lagu guda jiray in kala wareejino ay dhaceen shaqooyinka qaarkood miisaaniyadda wasaaradda ugu jiraa laga yaabaa inay wasaarad kale u guurtay shaqaala laga yaabaa wasaaradda hiblaayo ka tirsanaa inuu wasaarad kale ereg looga dhigo loo wareejiyey waa waxa noocaa on ku dhacdhaca iyo baahida markaa wasaarad baa laga yaabaa inay u baahato ayaan lacag u taalla isticmaalin marka saasaa laga yaabaa in mid kale oo markaa baahi u qabta loo wareejiyo waa waxa noocaa ku yimaada ma jiraan cid kaloo si gaar wax looga goyo miisaaniyaddan waxaa golaha doodiisu ay ka socotay 3 bilood bay baarlamaanka taallay octobar baa la keenay 45 cashana guddiga gacanta ku hayay guddiyadaa ka shaqaynayay consultationkii ugu dheeraa abid ee miisaaniyadii martaba ee martay saaxiibadeenna waa dad tiro yar waxaa laga yaabaa inay meel kale ka eegayaan miisaaniyadda mid shaksi ka eegaya mid nooc fasiraad xun xagga deynta ka bixinayo noocaa ka eegaya nooca ayay u eegayeen waktigiina waa la geliyey waktigiina waa la siiyey habraacii rasmiga ahaa bay martay waana arkayseen golaha goobjoog waa ka ahayd in xildhibaanada labada gole ay si majority ay miisaaniyadda habraaceeda u mariyeen una ansixiyeen warkaasi waa waraan jirin waa beentooda wey baa la odhan karaa waa waddadan miisaaniyadda aqoon warna ka hayn miisaaniyadda domestiga ee dalku xaqa u leeyahay 72% waxay ku baxdaa ciidamada iyo taliyayaashooda iyo waxoodana way ka warqabaan ciidamada iyo dalka ciidamadiisuna maaha wax siyaasad loo isticmaali karo oo xildhibaan muraad kale lehi uu mushaharkooda xuquuqdooda ku gaban karo waana waxa priority koowaad la siiyo miisaaniyadda marka la fulinayo ciidamada iyaga priority koowaad leh 72% markay ciidamada tahay 28 kale ayaa dalka u soo hara waxa kale waa lacagaha basha taboodka iyo lacagaha oo aan rasmiba ahayn oo laga yaabo inay sanadka dambe go-aan iyo kuwa mashaariicda looguma talagelin in ciidamada mushaar laga siiyo cid kale mushaar laga siiyo marka dadkan waa dadaan miisaaniyadda wax ka ogeyn waa dadaan miisaaniyadda wax ka aqoon waa dadaan sidaa u shaqaysa wax ka aqoon ciidamadana waxaan jirin bay u sheegayeen iyagoo wax kale